wax khaldan ma samayn haddana waan guul daraysanay kuwani waa ereyadii ugu dambeeyay ee maamulaha shirkaddii adduunka ugu weyneyd ee isgaarsiinta ka hor intaan magaceeda si rasmi ah looga tirtirin suuqa telefoonada sanadii 2000 haddii aad qof weydiin lahayd ma qiyaasi kartaa adduunka ayna Nokia jirin wuxuu ku oran lahaa ma qiyaasi kartaa adduunka ayna badi jirin waxay haysatay 40% ee telefoonada gacanta ee dunida oo dhan qiimaha shirkaddan wuxuu dhaafay 300 oo bilyan oo dollar waxay ahayd boqor aan marnaba la taaban karin astaan loo arkay inay tahay mustaqbalka bini'aadamka laakiin sidee bay shirkad intaas leeg oo haysata lacagta ugu badan injineerada ugu fiican iyo suuq ka kooban balaayiin qof ay dhowr sano gudahood ugu duntay si fudud maaha kaliya sheeko ku saabsan telefoon iyo qalab elektaroonig ah waa cashar ganacsi oo cabsi leh waa sheeko ku saabsan sida kibirka santaaga iyo cabsidu ay u baabi'in karaan boqortooyo kasta sidee bay shirkad ku bilaabatay geedo iyo alwaax ay u gaartay fiiqa ugu sarreeya dunida maxayse ahaayeen daqiiqadihii madooba ee habeen kaliya ay ku duntay shirkad intaas leeg soo qaado koobkaaga shaaha sababtoo ah barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa korokicii mucjisada ahaa iyo dhicitaankii xanuunka badnaa ee boqortooyada Nokia ee lumisay wax walba intaynu bilaabin muuqaalka aynu ku salino xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam si aan u fahanno masiibada waa inaan dib u laabanaa 160 sano sanadii 1865 dalka Finland oo markaas ahaa meel faqiir ah oo barafku daboolay nin injineer ah oo la yiraahdo Fredrik Endistam ayaa ka furay warshad yar oo alwaaxdii xaashiyaha lagu farsameeyo saaxiibayaal shirkaddan looma furi doonin inay telefoon samayso waxay sameyn jirtay waraaqaha wax lagu qoro iyo kuwa musqulaha sanado kadib warshadii waxay kaloo bilowday soona siyaadisay saameynta kabaha caaga ah iyo taayirada baabuurta laakiin sirta isbeddelka waxay timid sanadii 1960meeyadii marka ay shirkaddu go'aansatay inay abuurto qayb yar oo baarta qalabka elektarooniga iyo fiilooyinka isgaarsiinta dawladda iyo militariga sanadii 1980meeyadii dunidu waxay bilowday inay isbeddesho hirar cusub oo raadiya ah ayaa hawada soo galay maamulayaasha shirkadda reer Finland waxay arkeen aragti waali ah mustaqbalka dadku iskuma dhex wada hadli doonaan fiilooyin guriga ku xiranna ma sii jiri doonaan balse qof kasta wuxuu jeebka ku wadan doonaa telefoon dhex mara hawada yacni telefoon wireless ah sanadii 1982 waxay soo saareen telefoonadii ugu horeeyay ee baabuurta la dhigo kii ugu caansanaana wuxuu ahaa Mobira Senator wuxuuna miisaankiisu ahaa 10 kilogram si aad telefoon ugu hadasho waxay u baahnayd inaad qaaddo culays aad u badan maadaama telefoonka aad u cuslaa laakiin taasi waxay ahayd bilowgii kacaanka sanadii 1987 waxay soo saareen Mobira Sitman markaas uu madaxweynihii midowga Sofiyeeti Mikhail Gorbachev isagoo ku sugan caasimadda dalka Finland ee Helsinki ee telefoonka cusub ee Nokia ahaa Mobira Sitman 900 u isticmaalay inuu si toos ah u soo waco wasiirkii isgaarsiinta oo fadhiyay caasimadda midowga Sofiyeeti ee Moscow laakiin xilli ay shirkaddu isu diyaarinaysay in adduunka qabsato waxaa ku habsatay masiibo weyn dhaqaalihii dalka Finland ayaa hoos u dhacay suuqyadii waaweynaa way xirmeen shirkaddii waxay gashay deyn baaxad leh iyo wax isdabamarin dhanka maamulka ah culayskii iyo walbahaarkii jiray dusha ayay u xamili weysay waxaana dhacday dhacdo argagax leh gudoomiyihii guud ee shirkadda Kari Kairamo oo ahaa ninkii maskaxda u ahaa isbeddelka ayaa isdilay sanadii 1988 sababo la xiriira niyad jab iyo cadaadis maaliyadeed shirkaddii waxay weyday hogaankii waxayna qarka u saarneed inay kacdo oo ay xiranto ma jirin qof aaminsan in caagsameeyaashan reer Finland ay badbaadi karaan haddaba sidee shirkad agoon ah oo gudoomiyaheedii uu isdilay maaliyaduna dusan tahay uu guuleystay in dhowr sano kadib ay noqoto boqorka tiknoolajiyadda adduunka nin noocee ah ayaa badbaadin doona maxayse tahay go'aanka waalida ah ee uu qaadan doono sanadii 1992 nin dhalinyaro ah oo go'aan adag laguna magacaabo Jorma Ollila ayaa loo magacaabay maamulaha guud ee Nokia ninkan wuxuu la yimid qorshe cajiib ah oo naxdintiisana wata kaasoo ay la yaabeen dhammaan guddiga maamulka wuxuu yiri waxaan iibinayaa dhammaan qaybaha warshadda ee ka shaqeeya alwaaxda kabaha caaga ah iyo taayirada waxaan awoodeedo dhan iskugu geynayaa hal shay oo kaliya telefoonada gacanta wuxuuna ahaa khamaar weyn haddii uu qorshuhu fashilmana Nokia taariikhda ayay gali lahayd laakiin Ollila wuxuu garowsaday in dunidu ay u guurayso nidaamka cusub ee isgaarsiinta caalamiga ah ee GSM aan ka dabageeyay GSM
waa tiknoolajiyadii dhijitaalka ahayd ee dunida tustay waxa uu yahay sim card. ka hor GSM telefoonku wuxuu ahaa mid hal nambari ku xiran yahay, laakiin nidaamkan cusub wuxuu suurtageliyay in macluumaadkaaga oo dhan lagu rido kaar yar oo la bixin karo, laguna ridi karo telefoon kasta. sidoo kale waa nidaamkii dhalay fariimaha qoraalka ah ee SMS-ka. haddaba Nokia waxay bilowday inay soo saarto telefoonno ka fudud, ka qurux badan, kana battery kayd weyn kuwa shirkadaha kale. sanadii 1992 waxay soo saareen Nokia 1011 oo ahaa telefoonka gacanta ee ugu horreeyay ee si ballaaran loo soo saaro. 2 sano kadib waxaa masraxa soo galay Nokia 2110. telefoonkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay adduunka ee yeesha ringtone-ka caanka ah ee Nokia Tune ee qof kasta uu garanayo maanta. Nokia kaliya ma sameyn jirin aalado lagu hadlo, waxay bedeleen habka bini'aadamku u wada xiriiro. waxay garteen in telefoonku uusan ahayn qalab ganacsi oo kaliya, balse uu yahay wax qofka qurux iyo astaan u qaadanayo. sanadii 1998 mucjisadii weyneed ayaa dhacday. Nokia waxay ka saramartay shirkadii reer America ee Motorola, waxayna si rasmi ah u noqotay shirkadda telefoonada gacanta ee ugu weyn dunida oo dhan. sanadii 2000 waxay soo saareen telefoonkii taariikhda galay ee Nokia 3310. telefoonkan wuxuu noqday mid haliyey ah. wuxuu ahaa kii ugu adkaa ee bini'aadam sameeyo. baterigiisu wuxuu shaqeynayay dhowr maalmood, waxaana ku dhex jiray ciyaarta caanka ahayd ee masaska ee loo yaqaanay Snake Game oo malaayiin qof ay saacado ku bixin jireen. qof kasta oo adduunka jooga wuxuu rabay Nokia. shirkaddu waxay furaysay warshado cusub maalin kasta. lacagta soo galaysana waxay ahayd mid aan la xisaamin karin. boqortooyadii Nokia waxay gaartay meel sare oo ayna jirin shirkad kale oo u dhawaan kartay. laakiin inta ay maamulayaasha shirkaddu ku jireen dabaaldeg iyo badhaadhe, waxaa ka dhex dhashay dukaankoodii gudihiisa cudur aamusnaan ku soo galay, kaasoo saldhig u ahaa burburkooda. maxay ahayd sirta injineerada Nokia iska indhitireen iyagoo aaminsan inay yihiin boqorada aan marnaba dhici doonin? maxay ahayd khudbaddii cajiibka ahayd taasoo habeen kaliya bedeli doontaa adduunka tiknoolajiyadda? guusha weyn ee ay Nokia gaartay waxay dhashay dhibaato kale oo aad u weyn oo ah kibir iyo santaag. maamulayaasha iyo injineerada shirkaddu waxay bilaabeen inay rumaystaan in qof kasta oo adduunka jooga uu iyagu u baahan yahay oo ayna jirin cid bedeli karta. shirkaddu waxay noqotay mid aad u weyn, wax kasta oo go'aan ahna wuxuu qaadan jiray bilo iyo saacado badan oo shirar ah. Nokia waxay tiknoolajiyadeeda ku salaysay nidaamka software-ka ee la yiraahdo Symbian OS ama Symbian Operating System. waqtiga Symbian wuxuu ahaa midka ugu caansan, laakiin wuxuu lahaa hal dhibaato oo weyn. waxaa loo dhisay telefoonadii hore ee badhamada lahaa looma qaabayn in lagu shaqeeyo internet aad u dheereeya ama abis badan oo isku mar wada shaqeynaya. sanadkii 2004 injineerada Nokia waxay ogaadeen in Symbian uu yahay mid duugoobay, laakiin hoggaanka sare ee shirkadaha ayaa diiday in lacag badan ku bixiyaan software cusub. waxay yiraahdeen dadku waxay telefoonku rabaan inay ku hadlaan iyo inay fariimo qoraal ah isku diraan. labadaasna Symbian si fiican ayuu u qabtaa. Nokia waxay ku fashilantay inay aragto isbeddelka weyn ee dunida ku soo fool lahaa. injineeradu waxay ku mashquuleen inay soo saaraan boqolaal model oo telefoonno ah oo midka kale uu ka duwan yahay, laakiin gudaha iyo software-ka ku jira uu isku mid yahay. waxay sameeyeen telefoonno loogu talagalay ciyaaraha sida Nokia Engage iyo kuwa loogu talagalay sawirada sida taxanaha N-Series, laakiin isticmaalka software-kooda wuxuu ahaa mid aad u adag oo dhibaya qofka isticmaalaya. iyadoo ay boqortooyada Nokia ay aaminsan tahay in aan marnaba la ruxi karin, waxaa la gaaray bishii Janaayo ee sanadii 2007 magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka. nin lagu magacaabo Steve Jobs ayaa masraxa soo fuulay, wuxuuna gacanta ku hayay aalad yar oo leh shaashad oo kaliya oo aan lahayn hal badhan oo laga riixo, wuxuuna adduunka u soo bandhigay iPhone-kii ugu horreeyay. Steve Jobs wuxuu yiri, maanta waxaan dib u ikhtiraacnaa telefoonka. maamulayaasha Nokia markay ay daawadeen khudbadaas, qaar ka mid ah way ku qosleen, waxayna yiraahdeen kani waa telefoon qaali ah, xitaa haddii uu dhulka ku dhaco wuu jabayaa, ma lahan badhamo. dadkuna ma jeclaan doonaan inay muraayad farta ku taabtaan ama ay beer salaaxaan. laakiin qosolkaas wuxuu ahaa bilowga habeenka madow ee Nokia. iPhone kaliya ma ahayn telefoon cusub, wuxuu ahaa kombiyuutar yar oo jeebka lagu qaato oo uu software-kiisu ka fudud yahay mid kasta oo Nokia ay samaysay. 20 sano ee la soo dhaafay suuqii
wuxuu bilaabay inuu si waali ah isku bedelo. Google-na waxay dhanka kale soo saartay nidaamka Android. Haddaba waa maxay go'aankii argagaxa lahaa ee ay maamulka Nokia qaateen marka ay ogaadeen in iPhone uu suuqii ka xaday? Maxay ahayd fariintii cabsida lahayd ee maamulaha cusub u qoray shaqaalaha, taasoo muujisay in boqortooyadii in ay gubanayso? Sanadii 2008 iyo 2009 xaqiiqdan xadinta lahayd ayaa u caddaatay maamulka Nokia. Telefoonka iPhone wuxuu suuqa u qabsaday si la yaab leh, dadkiina waxay safaf u galayeen si ay u iibsadaan. dhanka kale shirkadaha kale ee waaweyn sida Samsung iyo HTC waxay si degdeg ah ugu biireen nidaamka cusub ee Google Android iyagoo suuqi ka xaday Nokia waxay isku dayday inay jawaab ka bixiso, waxayna soo saareen telefoonno muraayad ah oo la taabto, laakiin software-koodu uu yahay Symbian wuxuuna ahaa mid aad u gaabis ah, abiskana ay ku dhaxakanayeen. injineerada Nokia waxay ku jireen xaalad argagax leh. gudaha shirkadda waxaa ka dhacay jawi cabsi ah. maamulayaasha dhexe waxay ka baqayeen in madaxda sare u sheegaan xaqiiqda ah in teknolojiyadoodu ay fashilantay si aan shaqada looga eriyin ayay saas u sameeyeen. sidaas darteed waxay u sheegi jireen warbixino been ah oo sheegaya in wax kasta ay si fiican u socdaan si loo badbaadiyo shirkadda gubanaysa. guddiga maamulka Nokia waxay qaateen goosasho taariikhi ah sanadii 2010 waxay shaqada ka eriyeen maamulihii hore, waxayna markii ugu horeysay taariikhda keeneen maamule aan u dhalan dalka Finland. ninkan wuxuu ahaa Stephen Ilob oo ahaa maamulo sare oo ka soo shaqeeyay shirkadda Microsoft. Stephen markii uu yimid wuxuu baaritaan dhab ah ku sameeyay xaaladda software-ka Nokia, wuxuuna ogaaday in shirkaddu ay dhowr sano ka dambayso Apple iyo Google. bishii Febraayo ee 2011 wuxuu u qoray dhammaan shaqaalaha Nokia fariintii ugu caansaneed taariikhda ganacsiga tii loogu magac daray The Burning Platform. Ilob wuxuu ku yiri fariintiisii, waxaan ku taaganahay goob gubanaysa, qiyaas nin ku dhex jira marka badweynta ku gubanaya kaasoo agagaarkiisu ay dab xoogan ka kacayso. ninkaas wuxuu haystaa laba doorasho oo kaliya, inuu ku dhex gubto markabka ama inuu badda qabow ee madowga ah ku dhex boodo si uu u badbaado. annaguna hadda waxaan ku taaganahay goob gubanaysa, waa inaan raadino xalka aan ku badbaadi lahayn. fariintan waxay ahayd qirasho rasmi ah oo muujinaysa in boqortooyada Nokia ay dhulka ku dhacday, suuqii shirkadana oo habeen kaliya hoos u dhacay sababtoo ah dadkii waxay ogaadeen in xitaa maamulaha cusub uusan aaminsanayn telefoonada shirkadiisa. laakiin go'aankii uu Stephen Ilob qaatay si uu shirkadda uga bixiyo goobta gubanaysa wuxuu noqday kii ugu muranka badnaa taariikhda tiknoolajiyadda. haddaba muxuu ahaa go'aankii uu qaatay iyo sababta go'aankaas u noqday kii ugu dambeeyay ee Nokia naxaska saaray? markii ay caddaatay in nidaamka Symbian uu dhimanayo, Nokia waxay haysatay laba doorasho oo waaweyn oo ay ku badbaadi kartay. doorashada koowaad oo ay dadka oo dhan filayeen waxay ahayd inay ku biirto nidaamka Google Android si ay la tartanto iPhone, Samsung, HTC iyo Sony. dhammaantoodna waxay doorteen jidkaas, suuqooduna kor ayuu u kacay kuwaasi. laakiin maamulaha cusub Stephen Ilob wuxuu qaatay go'aan la yaab iyo naxdin ku riday dunida tiknoolajiyadda. wuxuu diiday Google Android wuxuuna sheegay in haddii Nokia Android qaadato ay la mid noqon doonto shirkadaha kale ee caadiga ah. sidaas darteed bishii Febraayo ee sanadii 2011 Nokia waxay heshiis weyn oo caalami ah la gashay shirkadda Microsoft si ay u isticmaalaan nidaamka Windows Phone. kani wuxuu ahaa kii loogu yeeray heshiiskii ibliiska. Microsoft waqtigaas ma aysan haysan nidaam telefoon oo suuqa ku xoogan, laakiin waxay Nokia siisay balaayiin dollar oo taageero maaliyadeed ah si ay software-kooda u qaataan. Nokia waxay awoodeedii injineernimo ee ugu dambeysay isugu geysay taxanaha cusub ee telefoonada ee loo bixiyay Nokia Lumia. teleefoonadan waxay ahaayeen kuwo si la yaab leh u qurux badan hardware ahaan, kaamiradooduna waxay ahaayeen kuwo ka fiican kuwa iPhone iyo Samsung. laakiin waxaa jiray hal dhibaato oo weyn: Windows Phone ma lahayn wax abis ah. tafatirayaasha software-ka ee developerska loo yaqaan ma aysan rabin in abiskooda u sameeyaan Windows Phone sababtoo ah dadka isticmaala ayaa yaraa. sidaas darteed qofka iibsada Nokia Lumia wuxuu ogaanayay in telefoonkiisu rasmiga ah uusan lahayn WhatsApp, Instagram, Snapchat iyo xitaa YouTube oo si fiican u shaqeeya. dadka adduunka oo dhan ayaa ka cararay Nokia. suuqa caalamiga ah ee Nokia wuxuu muddo dhowr sano ah gudaheed hoos ugu soo dhacay 40% ilaa uu ka gaaray 1% oo kaliya. shirkaddii Finland astaanta u ahayd ee dhaqaalaha dalkaas ruxaysay waxay qarka u saarneed inay dhimato. khamaarkii Microsoft wuxuu noqday fashilkii ugu weynaad ee taariikhda ganacsiga. sanadii 2013 maamulaha Microsoft ee waqtigaas Steve Ballmer ayaa u yimid Finland si uu u garaaco albaabkii ugu dambeeyay ee Nokia. waa maxay heshiiska naxdinta lahaa ee dhacay 2013? maxayse tahay casharka dahabiga ah ee Nokia uga tagtay adduunka? sanadii 2013 Nokia waxay gaartay
heer ay khasaare maalinla ah xamili weydo suuqeediina wuxuu hoos ugu dhacay meel aad u hooseysa sababtoo ah tartankii adkaa ee iPhone Apple iyo Android Samsung. Si ay shirkadda u badbaado waxay qasab ku noqotay inay samayso heshiis naxdin ku noqday taariikhda. Waxay qaybteeda telefoonada gacanta ka iibisay shirkadda Microsoft oo laga leeyahay dalka Mareykanka iyadoo lagu iibiyay lacag dhan 7.2 bilyan oo dollar. lacagtaas waxay ahayd mid aad u yar marka loo eego in Nokia qiimaheedii uu sanadkii 2000 ka badnaa 300 bilyan oo dollar. shirkaddii astaanta u ahayd dalka Finland waxaa dhiig miiray oo iibsaday shirkad Mareykan ah. shirkadduna waxay lumisay 97 qiimaheedii hore. maalinta saxaafadda loogu dhawaaqay heshiiskan maamulaha guud ee Stephen Ulov ayaa taagnaa masraxa isagoo indhihiisa ay ilmo ka soo qubanayso wuxuuna yiri ereyadii taariikhda galay wax khaldan ma sameyn laakiin haddana waan guul daraysanay. kani waxay ahaayeen ereyo muujinaya quus iyo naxdin. injineerada Nokia waxay rumaysnaayeen inay raaceen xeer kasta oo ganacsi. waxay sameeyeen telefoonno adag, waxay haysteen warshado waaweyn, laakiin waxay ku fashilmeen inay fahmaan hal shay: duniduna way isbedeshay. iyaguna way diideen inay isbedelaan. sanadii 2014 Microsoft waxay gabi ahaanba tirtirtay magaca Nokia ee telefoonada waxayna ku bedeshay magaca Microsoft Lumia. masiibada Nokia ma ahayn mid ku koobnay shirkadda oo kaliya ee waxay ahayd masiibo qaran oo ku habsatay dalka Finland. Nokia waxay ahaan jirtay shirkadda bixisa 25% cashuurta dalkaas. fashilkeeduna wuxuu dalka u horseeday guuldarro dhaqaale oo qaadatay sanado badan in laga soo kabsado. laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaan. dad badan waxay u maleeyaan in Nokia ay maanta dhimatay, laakiin Nokia weli waa ay nooshahay. qaybta telefoonada ee fashilantay kadib Nokia waxay dib u iibsatay shirkado kale waxayna xoogga saartay dhismaha qalabka isgaarsiinta iyo xargaha internetka ee caalamiga ah. maanta Nokia waa mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee dunida ee xukuma tiknoolajiyadda isgaarsiinta ee 5G iyo 6G. telefoonada maanta magaca Nokia ku saabsan yahayna waxaa soo saara shirkad kale oo madax bannaan oo la yiraahdo HMD Global kuwaasoo ka kireystay magaca oo kaliya. sheekada Nokia waxay adduunka ku reebtay casharkii ugu weynaa ee dhanka maamulka iyo ganacsiga. haddii aadan isbedelin marka ay dunida isbedelayso, xitaa haddii aadan wax khalad ah samayn, waa baabi'i doontaa. kibirka iyo santaaga wuxuu shirkaddii ugu weynay dunida ka dhigay mid taariikhda u gashay fashil. maanta marka aad gacanta ku hayso telefoonka casriga ah ee muraayadda ah, xusuuso shirkaddii haysan jirtay dunida oo dhan laakiin ku fashilantay inay aragto mustaqbalka. kani wuxuu ahaa kor u kicii iyo dhicitaankii boqortooyada Nokia. haddaba daawade, haddii aad jeceshahay sheekooyinka taariikhiga ah ee cajiibka ah, ha hilmaamin inaad like saarto muuqaalka, subscribe-na dhahdo channelka, lana wadaag saaxiibkaaga yaraanta ee telefoonka Nokia aad ka wada ciyaari jirteen geemka maska. mahadsanid.